xogayaha urbaha bulshada xisbiga mucaaradka Ucid Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa sheegay in xeerka diiwaangelinta madaniga ay toddobaadkii hore qaadaceen xisbiyada mucaaradku ay xukuumadda qorsheynayso inay baarlamaanku ansixiyaan xeer ayagu ku soo sameysteen golaha wasiiradu soo sameeyeen iminkana la tahriibinayo lama arag xeer doorasho khuseeya oo ay golaha wasiiradu ay sameystaan wax waliba stakeholders bay leeyihiin stakeholderska xeerka doorashooyinka waa xeer ka dhaxeeya xisbiyada mucaaradka komishanka gudahoosaadka baarlamaanka iyo dabcan madaxtooyadooda leeyihiin laakiin waxay doonayaan iyagu sameystaan inay saa ku ansixiyaan oo macnaheedu yahay inaan doorasho dhicin ay boobaan oo macnaheedu yahay in madaxtooyada loo kordhiyo oo macnaheedu yahay baarlamaanka aynu ognahay intuu teeram loo kordhiyo hore inay maantana xaaraan ku sii fadhiyaan waxa aan aad iyo aad uga xumahay in dalka isxambaar ku yimi oo aan cod iyo caqiiba toona ka gelin oo maanta doono inuu baabiyo doorashadii dalka oo aan ognahay oo ku faana inuu leeyahay 3 maamul goboleed oo khaatimo ku faanayo Jubbaland iyo waxaan leeyahay kilka shanaad ka yeelimayno inuu dalka waxba ka gelin baabiyo waxaan maanta halkan ka bayaaminayaa ummadda u sheegayaa in ay tahay xeerkaasi xeer baabiinaya wada shaqayntii naga dhaxaysay beesha caalamka xeerka hooyinimada nidaamka caalamka wada shaqaynayo oo ognahay maalinta dawladda beesha caalamka cadaadis ku saarto xuduudaha dalka iyo qadiyadda Soomaaliland mucaaradka u yeerta maalinta ay doonayso wax yar oo iyadu caanteena samaysatana wasiirada soo sameeya dabadna baarlamaanka la doonayo xal lagu dhaafiyo geesagale xogayaha warfaafinta xisbiga Ucid Yuusuf Kaysa Cabdullaahi ayaa sheegay in xisbi ahaan ay jawaab ka bixinayaan eedaha uu shalay wasiirka dawladda iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi uu jeediyay musharaxa madaxweynaha xisbiga Ucid Jamaal Cali Xuseen sidoo xaj iyo uga hadlayay ayuunbu aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen musharaxa tagada madaxweynaha xisbiga Ucid aan aragnay in isagoo hadalaan denin siyaasi oo ma garanaysaa wasiiro waliba dalka xil ka haya aanu qalmin uu kaga hadlayo ayaanu aragnay isagoo Jamaal Cali Xuseen ku caayo leh borotokoolkana waxba kama taqaanid garoomo caalamiyana ma arag tababar in lagu fulano waa la doonaya war hadaanu Jamaal Cali Xuseen garoon arag oo aanu ma garanaysaa borotokool garanay ma adiga garanaya borotokoolka waxaan leeyahay wasiir waxa tahay wasiirka ugu sharci jabinta badan leh dalka sharci jabinta badan leh dalka wasiirka duulista hawada wuxuu ka qayb galay markii Soomaaliya uu ku fashilmay arintii Soomaaliya ee wasaaradda arrimaha dibadda ee wasaaradii duulista hawada Soomaaliya ay la wareegtay hawadii Soomaaliland ayuu cararay oo wuxuu ka qayb galay shir ganacsiga marka waxaan leenahay isagana Jamaal Cali Xuseen waa nin dalkan soo gurmaday waa nin dadkan iyo dalkanba u soo gurmaday inuu badaha ka badbaadiyo dhalinyarada maalin walba aad leedihiin cashan ugu sameeyna hudheelada iyagoo aan idinka baahnayn diiwaangelinta madaniga ayaa xisbiyada mucaaradku ay qaadaceen khamiistii toddobaadkii hore iyagoo sheegay in xukuumaddu ay ku caraqladanayso doorashooyinka Khalid Xabsi Kaltan TV Hargeysa